boqolaal qof oo ay ka mid yihiin culamaa udiin iyo aqoon-yahano ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay turjumaadda cutubka 30aad ee qur-aanka kariimka juscamo oo lagu turjumay af Soomaali. turjumaadda uu sameeyey Sheekh Maxamed Xirsi Guleed ayaa munaasabadda lagu soo bandhigayay waxaa soo qabanqaabiyey xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo. Cabdinaasir Yuusuf Maxamuud oo wakiil ka ahaa qoraaga buugga ayaa ka hadlay taariikhda qoraaga iyo sida loo turjumay juscama. magaciisa oo saddexan waa Maxamed Xirsi Guleed Cabdibashiir waa naaniistiisa. walaalkeen wuxuu qoray 16 buug oo isugu jira siyaasad, suugaan, diin iyo sheekooyin kale. wuxuu tarjumay 23 buug oo caruureed asalkooduna u ahaa af Swedish. wuxuu alifay 3 riwaayadood. wuxuu tiriyey 70 maanso. waxbarashadiisa waa heer jaamacadeed. wuxuu ku takhasusay siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxbarashada kale ee uu Maxamed Xirsi Guleed Cabdibashiir uu leeyahay waa xeernimo xagga diinta islaamka, siiba tafsiirka quraanka iyo labada saxiix luqadda carabiga iyo fiqiga. Sheekh Bashiir Axmed Salaad, Sheekh Xasan Waajidi iyo Sheekh Cabdilxayi Sheekh Aadan oo la hadlay boqolaalkii qof ee munaasabadda gobjooga ka ahaa ayaa ka sheekeeyey sida loogu baahan yahay in la fududeeyo barashada diinta islaamka oo ugu horeeyo quraanka kariimka iyo tafsiirkiisa. quraankana maanta dagaal baa lagu hayaa, laba dagaal baa quraanka lagu hayaa. dagaal waxa weeye dagaalka quraanka sida khardan loo fasirayo, dadka lagu gaalaysiinayo, dhiigga lagu banaysanayo, xoolahooda lagu baadahaya, quraanka la baabi'inayo weey. dadkana waxa weeyaan quraanka lagu la dagaalamayo heeso lagu la dagaalamayo oo la leeyahay wacyigelinta fanaaniinta qaabilsan baa la yiri. wacyigelinta fanaaniinta qaabilsan, wacyigelinta culumada iyo quraanka iyo xadiidka qaabilsan. mayba antuun kuma hadnaga faday walaalahay Guryasamo oo runtii wanaag badan ummadda u muujiyeen aman dacwada lagu mashquuli oo dad badan saaxada ku mashquulan dhalinyaradan hata habati oo diinta Ilaahay faafiyahayaan oo horumar deersiyahayaan. jazaahum Allahu khayr. bal ana shakhsiyan ma anka mahadnagay Guryasamo dadka hogaamiyo iyo mas'uuliyiinta dhanba hadal jeedinta in ka badanayti. quraanku wuxuu kaga duwan yahay mucjizooyinkii hore ee nabiyada loo soo dhiibi jiray. nabiga markii mucjizadiisa nabiga uu dhinto way la dhiman jirtay. ushii nabi Muuse xilligii nabi Muuse ugu dambeysay, laakiin quraankeena oo nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu soo dejiyay waa ka hadda inoo akhrinayo. marka waa fursad laga faa'iideysto. juscamo af Soomaali lagu soo turjumayna guri walba hadii uu tago isbedel inuu ka muuqdo guriyahaas ayaa loo baahan yahay. waa mahadsantiin. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Axmed ayaa ka hadashay munaasabadda. waa inaan diinta dib ugu noqonaa, waa inaan kitaabada akhrisanaa. haddii aysan fisraadda la aqoonin maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin juskii ugu horeeyaan taagannahay oo la soo bandhigay la qaybin doono qof walbana ay gaari doonto. 30 jusna sidoo kale aan rajaynayaa af Soomaaliga in kor loo qaado waa ahmiyad gaar ah, sababtoo afkeena hooyo uu dhintay ma hayna afka gaar afkeena hooyo. haddaad aragtid boora meel la dhijinaa awalan Ingiriis waay, xataa carabiga ma aha. marka isku daya in afkeena Soomaaliga kor u qaadno, in kitaabada la soo fasiray aan akhrisano, aan ku camal falno. Abdicasiis Okay, TV Universal, magaalada Muqdisho.